السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaashin deeqo janalkaygana waa deeqa xilna waa idin salaama asxaabtayda qaaliga meel walba adduunka joogtiin dal iyo dibadba waxaan idin leeyahay caafimaad fiican insha allah. waxaan idin dhammaystirayaa jaceylkii faqiirka iyo taajirka u dhaxeeyay. gabadha faqiirka ahayd oo wiilka taajirka jeclaay ayaan caawa idin dhammaystirayaa insha allah. daawasho wanaagsan. marka baayadii faqiirka ahayd gabadhii Faa'isa waxay tiri wiilkii markuu ka tegay hooyadiina ay lacag u keentay ay ku dhamaatay sheekada qisadii qaybteedii labaad. waxaan ka sheekeynayaa qaybtii saddexaad hadduu ilaahay raalli ka noqdo insha allah. ilaahayna hanoo wada toosiyo insha allah. marka sida tan ay ku bilaabanaysaa. maamadii gabadhii lacagta way ka diiday waxayna tiri hooyo aniga uma baahni inaan iibsado jaceylkayga ayay tiri aan lacag ku iibsado. waa ay ka tagtay hooyadii waxay tiri lacagta waa midda kala wada ay tiri nolosha bini-aadanka. lacagtaana waa ay ku anfici doontaa gabaryahay haddaa diidaydna lacagtayda ima cuslaynayso waxaan ku celinayaa meeshii aan ka keenay ayay tiri hooyadii wiilka dhashay. gabadhii waxay tiri aniga wax lacaga uma baahni hadda waxaana kuu fiicanay tiri hooyo lacagtaada in aad iska qaadatay tiri gabadhii. hooyadii gabadhii waa ay ka tagtay gabadhiina gurigeedii ayay dib ugu laabatay. gurigeedii ayay joogtay. waxaa u yimiday wiilkii wuxuuna yiri waxaan rabaa arrin muhiim ah in aan kaa codsado in aad ii sameyn kartid iyo in kale. waxay tiri maxay tahay arrinta aad rabtid in aan kuu sameeyo bal ii sheeg ayay tiri. wax waliba waa iga diyaar aniga. wuxuu yiri abaayo ma rabtaa in aan ku guursada ayuu yiri weliba guur xalaal ah. waxay tiri haa waan u baahanahay waxaan muddo aan rajeynayaba waa midaas ayay tiri. nolosha waxay ku macaan tahayna waa lamaanaha ayay tiri. waxaanan u baahanahay in aan qoys yagleesho weliba qoys aad u qurux badan ayay tiri gabadhii. wuxuu yiri abaayo hadda ayaan ku guursanayaa haddaad diyaar tahay waxaan u baahanahay in aad qabsatid gacantayda ayuu yiri wiilkii. waxay tiri haa gacantaada waan qabsaday mana sii dayn doona ayay tiri inta cimrigayga ka dhiman sidaan ayaanan u haysa doonaa ayay tiri gabadhii. waa ay israaceen wiilkii iyo gabadhii ayadoo weliba aad iyo aad u faraxsan oo ku faraxsan guurka oo usoo bandhigay ninkii ay jecleeday ama gacaliyaheedii. waxay tiraa haye waaban israacnay halkee baan tegaynaa ayay tiri. wiilkii wuxuu soo diyaarsaday howl aad iyo aad loo sharaxay oo maasha allah laga dhigay oo kala kacsan. saaxiibadiisana waa uu ka qariyay wuxuuna uga dhigi rabaa surprise aa looga dhigi rabaa caawa guurkeeda maasha allah. gabadhi wiilkii waa uu waday wuxuuna yiri caawo ma rabo in aan kuu sheego meesha aan kuugu sameynayo farxadaada waxaan rabaa kaliya in aad gacanteyda qabsato aadna sii deynin yiri. gacanteyda inaad qabsataan rabaa yiri aadna sii deynin. aad buu ugu farxay marka gacantii ayay qabsatay gabadhii. waxay tiri kuma siin deyn doono inta cimrigayga ka dhiman. wayna israaceen. wuxuu geeyey hoolkii qayb ka mid ah ayuu geeyey. wuxuu yiri bartaan igu sii sug. wuxuu usoo waday gabadh u hagaajisa timaha iyo weliba taashka arooskeeda. gabadhii waxay tiri mala socotaa in aad kaligay isoo kaxaysatay maxaa dhacay aniga famil ayaa iga dambeeyo soo ma ogid maxaa dhacay guurkeena cidna lama ogeysiinayo miyaa
maxaa jira soo familkeeni uma sheegeyno arrintan aadka u quruxda badan leh. Wiilku wuxuu yiri wax waliba caawa waxaan rabaa in aan kaaga dhigo surprise wax la dhahayaa jira caawa. Marka wuxuu yiri aad ayaan kaaga farxin doonaaye waxbana ha murugoonin, adiga waxa aan kaa codsaday inaad ii sameyso ayaan kaaga baahanahay ayuu yiri wiilkii. Waxay tiri waayahay igu halay wax waliba in aan ku soo hagaajiyo. Gabadhii waa ay kaxaysay, gabadhii koofeerka ayaa la geeyey, waxaana loo soo hagaajiyey taashkii arooskeeda iyo weliba aadna waa loo soo sharxay sidii arooska caadadiisaba ahayd. Maasha allah, gabadhii aad ayaa loo soo sharaxay, libis qurux badan ayaa loo soo xiray amba taash qurux badan saa u taqaano ayaa loo soo xiray gabadhii. Wiilkii waa uu baxay intii gabadhii la hagaajinayay, waxa uu diyaarsanay reerkii gabadha dhalay ama hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalaheed ayuu markii horeba ka doonto soo siiyey gabadhii. Ayada laakiin surprise ayaaba looga dhigi rabaa sheekada. Reerkii ayuu soo waday wiilkii, wuxuuna keenay goobtii lagu qaban rabay arooska ama hoolkii ayuu keenay. Wuxuuna yiri aniga caawa waxaan rabaa gacalsadeyda in aan farxad aad u qurux badan aan u sameeyo, ay ku faraxdo inta cimrigeeda ka dhimana ay igu soo xasuusato ayaan rabaa yiri in aan u sameeyo. Marka waxaan idinka codsanayaa meel qaas ayaan idin diyaariyey ayuu yiri, waxaanan rabaa in ay farxayso iyo in kale in aan tijaabiyo ayuu yiri. Marka gabadhii familkeeda wuu soo kaxeeyey wiilkii, wuxuuna keenay hoolkii qayb ka tirsan ayuu keenay. Wiilkii wuxuu yiri meeshaan ayaa inta xalfadda ka dhiman dad aan idin diyaariyey ay idinku casuumi doonaan, weliba si aad iyo aad u qurux badan ayuu yiri wiilkii, waana ka heli doontiin soo dhaweynta meeshaan, cid waxyeeleyn kartana ma jirta ayuu yiri wiilkii. Reerkii gabadhii iyo hooyadii walaalihii meesha ayuu keenay, gabadhiina meel kale ayuu geeyey oo lagu hagaajinayay. Waxaa imaatay martidii arooska kasoo qayb galaysay, hoolkii wuu soo buux dhaafiyey sida caadada ahayd arooska. Aad ayaa dadkii martida ahay u imaadeen. Markay imaadeen kadib waxaa la yiri aaway arooskii iyo weliba aroosadii. Arooskii asigana wuxuu tegay meeshuu isku soo libisi lahaa, uu kasoo xiran lahaa dharkiisii arooska oo ugu talagalay. Waa uu soo libistay, waxaana la qaban qaabinayay aabihiisa asiga dhalay iyo weliba saaxiibkiisa qaaliga ah ayaa la diyaarinayay arooskiisa. Waa idinkaga hormarayaa waa idinkaga dib dhac macnaha. Waxaa arooska la diyaarinayay saaxiibkiisa iyo weliba aabihiisa aadka u macaan. Maasha allah, aabo walbo waxaan leeyahay maasha allah inaad saas oo kale wiilkaaga u garab istaagto maalinta uu kuu baahan yahay. Mar waliba hooyada iyo aabaha waxaa fiican inay ku wada farxaan, inay family u sameeyaan caruurtooda, ama ay ku farxaan waxay ciyaalkooda jecel yihiin inay ku caawiyaan, ay ku garab istaagaan. Bes sheekadii aan idiin sii wadee, wiilkii ayaa saaxiibkiis ayuu yiri aniga ayaa soo diyaariyey arooskii, waanan keeni doonaa, wax yar ii suga ayuu yiri. Martidii ayuu la hadlayaa oo hoolka fadhiday. Martidii waxay dhaheen arooskii iyo aroosadii ma aragno, hoolka ma shidno, micnaha ma nuuraayo hadday ka maqan yihiin lamaanaha isguursanayo. Wuxuu yiri wiilkii waa ay imaanayaan wax yar kadib, wayna isi soo diyaarinayaan ayuu ku yiri wiilkii. Waxaa imaaday wiilkii, wuxuuna yiri martidii oo dhan miyay timiday?
haa ayaa lagu yiri, martidii waa diyaar, waxaa la sugayaa waa adiga iyo xaajiyadaadii, macnaha gacalisadaadii ayaa lagu yiri, waxaa la sugayaa gacalisadaadii iyo adiga, waa inaad timaadiin goobta arooska ka dhacayo ayaa la yiri. Wiilkii wuxuu yiri, hadda ayaan keenayaa gacalisadeyda, wax yar kadib ayaan isla imaan doonaa ayuu yiri. Wax yar kadib waxaa imaatay wiilka hooyadiisa, waxayna soo qaraacday taleefankiisa, waa uuna ka qaban waayay hooyadiisii taleefan. Aabihii ayaa ka qabtay taleefankii, wuxuuna ku yiri, xaajiyadeydii caawa waxaan ku wadaa xalfad aad u qurux badan, waxaanan rabaa in aad iyo aad isu soo diyaarisid, weliba laguu qaato yiri, yaa dumarka ugu quruxda badan leh goobtaas aan caawa ka qayb geli doono ayuu yiri odagii. Waxay tiri, oo casuumaadkana yaa kuu fidiyey? Wuxuu yiri, wiil aad igu qaaliya ayaa ii fidiyey ayuu yiri aabihii, asigoo xaaskiisa rabo inuu ka qayb geliyo wiilkiisa oo guursanaya caawa. Hooyada raalli kama ahan soomaahan inuu wiilka guursado gabar faqiir ah ama gabar sabool ah sida aa u garanaysid. Bes waxay tiri, haa waan aadaynaa, arooska yaa dhiganayo ayay tiri, ma faqiir mase taajira? Warta faqiir iyo taajira hor cararay. Marka wuxuu yiri, iska daay, waxaa caawa arooska dhiganayo wiil taajir ah oo meesha ugu magaalada aan deganahay ugu taajirsan ayuu yiri, ayaa caawa aroos shidan dhiganaye in aan ka qayb galno ayaan rabaa ayuu yiri wiilka odagii. Islaantiisa asay tiri, waayahay, hadda ayaan isi soo diyaarinayaa, wax yar ayay igu qaadan doontaa ayay tiri maamadii. Waayahay ayuu yiri, anigana waan diyaar garoobayaa. Odagii habartiisa islaantiisa ayuu soo kaxeeyey, ama wiilkiisa hooyadiisa ayuu soo kaxeeyey, wuxuuna keenay goobtii arooska lagu dhigayay amba xalfadii meeshii lagu qabanayay arooska ayuu keenay. Waxay tiri, ma arkee arooskii meeday, aaway gabadhii la guursanayay maba arkee, wiilkii wax guursanayana maba arko, familkoodina sidoo kale ma arko, oo martida yaa soo dhaweynaya ayay tiri maamadii. Wuxuu yiri, aniga ayaa martida laygugu talagalay in aan soo dhaweeyo marwadeydii soo dhawow, arooska waxaa dhiganayo aniga qof igu qaali ah ayuu yiri. Waayahay ayay tiri, maasha Allah, waan kasoo qayb galay, waana kaa gudoomay ayay tiri, sida wanaagsan aad ii soo dhaweysay ayay tiri xaajigeygiyo. Waayahay ayay tiri, meel ayuu fariisiyey, wuxuuna yiri, waxaa imaan doono arooskii iyo weliba aroosadii, waxaana loo baahan yahay gacmo furan in aan kusoo wada dhaweyno annagoo weliba isgarab istaagsan ayuu yiri odagii wiilka dhalay. Waxay tiri, waayahay xaajigeygiyo, diyaar ayaan ahay, waanan kula soo dhaweynayaa ayuu tiri arooska quruxda badan leh iyo weliba aroosada aan ka liidanin. Arooska quruxda badan leh wiilka ayay ku jeedaa, iyo weliba aroosada aan ka liidanin waa gabadhii, waan soo dhaweynayaa ayay tiri. Wuxuu yiri, waayahay, way imaanayaan muddo kooban ka bacdi. Wiilkii iyo waxaa imaaday gabadhiyo gacmaha is haysta, aad iyo aadna u qurux badan, ayaa mar qura iskala soo galay albaabkii. Markii ay soo galeen, gabadhii taajka ayaa wejigii ugu daboolan oo wejigeeda maana fiidnin. Wiilkiina waa uu gacanta ayuu ka hayay, arooskii ayayna hal mar qura isla soo galeen albaabkii. Waxayna tiri, waaba aroos aan caadi ahayn ayay tiri hooyadii, waa maxay arooskan aadka u quruxda badan leh? Asuu yiri, haa marwadeydii caawa waxaa guursanaya geesigii aniga aan jeclaay ayaa caawa guursanaya ayay tiri.
ayaa guursanaya ayuu yiri caawa, waa idinka qalda sooray, ayaa caawa guursanaya ayuu yiri odagii, kusoo dhawow geesigayga arooskiisa. Wiilkii ayaa soo galay gudihii, maamadii waa ay faraxday, waxayna tiri maasha allah, wiilkayga ducadeyda ayaa aqbal u noqotay, wuxuuna iska daayay ayay tiri gabadhii faqiirada ahayd oo saboolka ahayd oo waxbana haysanin, aaba ilaahayga ka reebay ayay tiri wiilkayga waatana caawa gabar qurux badan ayuu guursanayaa oo reer taajirana ka dhalatay ayay tiri habartii. Micnaha waxay u maleysaa wiilkeeda inuu guursanayo gabar kale, because gabadhii naqaam ay xirantahay, indhihii way u dabooleynaysaa maaha, naqaam ayay xirantahay. Taashka wuxuu leeyahay maro hore laga soo saaro oo markaa xiratid maro hore loogu soo daboolo qofka wejigiisa lagu qarayo. Marka waxay tiri ma arki karaa gabadha aan sadohda u ahay, inaan wejigeeda arka ayaan doonayaa. Wiilkii ayaa soo booday, wuxuu yiri hooyo, markuu arooska dhaco kadib ayaad wejigeeda arki kartaa ayuu yiri, taasne balan ayaan hore ugu soo galay ayuu yiri wiilkii. Hooyadiisa ayuu qayaan rabaa, wuxuu yiri balan ayaan hore ugu soo galay, marka hooyo waxaad arkaysaa ayuu yiri markuu guurka dhaco kadib. Gabadhii goobtii ayaa la keenay, markii gabadhii arooska la qeyb meesha arooska lagu dhigaayo la keeno hoolkii. Wiilkii wuxuu wacay familkii gabadha, aabahii, hooyadeeda, walaalaheeda, arooskii loogu wacay. Arooskii wuu dhacay, gabadhii wiilkii isguursadeen, arooskii baa dhammaaday. Gabadhii waxay tiri aniga familkayga arooska ma imaanayaan miya ayay tiri. Wuxuu yiri familkaaga arooska ayaga ayaaba qaban qaabiyey ayuu yiri, iyada ayaana soo diyaariyey arooska meeshan ka dhacayo. Gabadhii aad ayay ugu faraxday, waxay tiri waxa soo diyaariyey ma familkayga ayay tiri haa, weli familkaagana raali miyay ka yihiin. Gabadhii wuxuu ku yiri haa, familkayga iyo familkaaga oo wada faraxsan ayaa diyaariyey arooskeena aadka u quruxda badan leh, waana u jeedaa ayuu yiri, waan isku faraxsanahay, inta cimrigeena ka dhimana waan isku farxi doonaa ayuu yiri. Gabadhii arooskii markuu dhammaaday, hooyadii ayaa soo booday, waxayna tiri gabadhaydii sadohda aanu ahaayey, wejigaaga in aan furo ayaan rabaa ayay tiri. Wiilkii wuxuu yiri maya hooyo, balantii lama gaaran ayuu yiri, balantu waxaa waaye gurigii markaan tagno ayaan furi doonaa gabadha wejigeeda. Waayahay ayay tiri hooyadii. Gurigii ayaa la geeyey, gabadhii waa la soo galbiyey amba gurigeedii ayaa la keenay oo wiilka ku guursaday. Gurigii markii la keenay, gurigii tagtay ayay waxay tiri sadohdii wiilkaygiiow, maanta waan ku weydiiyey, waxaadna i tiri lama gaarin balantii, aaway aan gabadhayda wejigeeda aan arkay quruxda badan leh. Waayahay ayuu yiri hooyo, gudaha usoo dhaaf, dhiigan ayuuna kugu karan ayuu yiri. Ileen gabadha waaba gabaraad hore u taqaanide yaa orayood u taqaanaayo yiri hooyoy, yuuni dhiiga kugu karin ayuu yiri. Waayahay tiri gabi maamadii guriga ayay soo gashay ama hooyadii, waxay niqaamkii ka fiiday gabadhii, waxayna aragtay wiilkii oo gabadhii faqiirada ahayd soo guursaday. Maamadii waa ay qaylisay, waanay bururtay, afkeedii ayay kala furtay, waxayna ku tiri maxay tahay qayaanada intaan la eg, wiil ayaaba hooyadiisii qayaanay, maxay tahay dhibaatada intaan la eg aad igu sameynaysid, wiilkaygiiow maxaad ii qayaantay ayay tiri. Wuxuu yiri hooyo, kuma qayaanin aniga, waanan kuu sheegay gabadhaas in aan jecelahay, kamana maarmi dooni ayaan ku dhahay. Arooskan aabahayga ayaana igula taliyey ayuu yiri in aan guursado, farxadeydana aabahayga ayaa dhisay ayuu yiri.
aabahayga iyo hooyadeydana waa isugu kaymid. Haddii aabahayga uu guurkayga dhisay, hooyadeyna maanta way i dhisi kartaa, ayuu yiri wiilkii. Hooyaday ayada ayaaba i dhashay, waxayna iga soo bixisay, ayuu yiri, caloosheeda. 9 bil ayaad hooyo caloosha igu soo siday, ayuu yiri, waadna isoo korisay intaan kala soo ekaanayna. Habeen walbo waxaad ku farxi jirtuu yiri in aan weynaado, in aan barbaaro, inaan noqdo wiil weyn oo meel iska soo saari karo. Waxaadna markaan xanuunsado u murugoon jirtay si saa'id ah, weliba waad ilmeyn jirtay, ayuu yiri hooyo. Mararka qaar markii aan meel aado aan ku soo daaho, hooyo aad ayaad u murugi jirtay, ayuu yiri wiilkii. Wuxuu yiri hooyo, markii aan dhibaato galana waadba ooyi jirtay, ayuu yiri, marka qaarna waaba u dulqaado weyn jirtay dhibaatada aniga igu dhacday. Hooyo macaan, ma la socotaa, ayuu yiri, daqiiqadna in aanan kaa maarmi karin. Ma la socotaa, ayuu yiri, qayb nolosheyda ka mid ah in aad tahay, ayuu yiri. Wiilku waa iga calool xumaynayay. Wuxuu yiri hooyo macaan, ma dareemi kartid, ayuu yiri, farxadda caawo aan guriga ku haysto. Farxad kasii weyn adiga ayaa ii ah, ayuu yiri. Hooyo, tan waa mustaqbalkayga adduunyada, ayuu yiri, laakiin taas oo adiga hooyo ay ahaanta ah, hooyo waxaa waaye, ayuu yiri, mustaqbalkaygii aakhirada. Mana raba, ayuu yiri hooyo, in aadan waxaad raali ka ahayn aan sameeyo, ayuu yiri hooyo macaan. Gabadhaana haddaadna raali ka ahayn, ma doonaya, ayuu yiri, in aan ka dhigto marwadeyda ama aan ka dhigto jecalkayga, ayuu yiri wiilkii. Waa wiilkii shalay jecalka la oynay, maanta hooyadiis darteeda ayuu u ilmeynayaa. Aniga xataa waa calool xumooda saxaabe. Bas hooyadii waa ay qiirootay, wayna ilmeysay, weliba si saa'id ah. Wiilkiina intuu hadalkii waday, asigana wuu qayrooday, wuuna ooyay. Gabadhii ayadana way oysay. Waxay tiri, ma raba, ayay tiri gabadhii, in aan 2 qof oo isjecel dhexdooda aan dhibaato ka abuuro. Mana raba, ay tiri, nolol faraxsan in aan kala gooyo ama aan ku noqdo dhibaato. Waxaanan u baahanahay, ayay tiri, gurigan in aan isaga tago. Waxaana idin rajeynayaa, ayay tiri, farxad aad u qurux badan inaad isla qaadatiin adiga iyo hooyadaada iyo weliba aabahaaga, ayay tiri gabadhii. Albaabka ayay ka soo baxday, wayna baxday. Wiilkii wuxuu yiri hooyo, farxadda adiga ayaa ii ah, nolosheydana adiga ayaa ah, wax walibana adiga ayaa igu soo tarbiyadeeyay, ayuu yiri. Noloshana 2 uma qaybsami karta, ayuu yiri. Nolol waxaa kuu noqon karo hooyadaada oo garab ku siisa, ayaa nolosha adduunyadana kuu ah, nolosha aakhiradana hooyo ayaa kuu ah, ayuu yiri wiilkii. Hooyo macaan, iga raali noqo inta yar aan qalbiga kaa jebiyay, ayuu yiri wiilkii. Waana ka xumahay, dib dambana uma sameyn doona, ayuu yiri, waxaadan raali ka ahayn ama aadan ku faraxsanayn, ayuu yiri wiilkii. Hooyadiisa ayuu ka qayraysiiyey. Hooyadiisa way oysay, waxayna tiri wiilkaygiiow iga raali ahaaw. Waxaan fahmi waayay, ayay tiri, noloshaada. Waxaana fahmi waayay, ayay tiri, qalbigaaga jacaylka iyo wanaagga iigu jiro ayaan fahmi waayay, ayay tiri. Waxyaabaha xun ayaan ku fikiri jiray, ayay tiri, mar waliba. Waxaanan ahay hooyadaadii adiga ku dhashay. Waxaana mar waliba ku hamin jiray, ayay tiri, in aan arko adigoo faraxsan. Mana rabo in aan arko adiga oo murugaysan, ayay tiri hooyada wiilkeedii. Waxayna tiri, maanta wixii ka dambeeyo ma dhihi doona, ayay tiri, lacag iyo hanti intaba ma sheegi doona, ayay tiri hooyadii. Waxaanan ku rajeynayaa, ayay tiri wiilkayga, nolol farxad leh iyo weliba
nolol aada u qurux badan ayaan kuu rajeynayaa ayay tiri hooyadii. Wiilkaygiiow waanan kuu duceeyey ayay tiri, qalbiyan ayaanan kaaga duceeyey ayay tiri wiilkii hooyadiisa. Saxaabi ani waaba qiroonaya bis wiilkii wuxuu yiri hooyo aniga hore ayaanba kuugu sheegay ayuu yiri, farxadeydana waa adiga, weligeedana adiga ayaa farxadeyda ahaan doona ayuu yiri, nolol kalena uma baahni ayuu yiri hooyo. Hooyadii waa ay baxday, albaabka ayayna ka baxday, waxayna tiri wax yar ma ii dulqaadan kartaa ayay tiri wiilkaygiiow. Haa ayuu yiri hooyo waan kuu dulqaadan karaa. Waa ay baxday hooyadii, waxayna ka daba tagtay gabadhii oo wadada ooynaysa calaacalaysana. Gabadhii ayay isku duubtay hooyadii, waxayna tiri gabadhaydii iga raali noqo, nolosheydii waan qaldamay, qalad weyn ayaanan kaa galay, adiga iyo weliba wiilkayga waan ku baryayaa hooyo isaamax ayay tiri. Waxaana rabaa in aan arrinkaa codsado si bini-aadanimada ku jirta ayay tiri hooyadii. Waxaan rabaa in aan arrinkaa codsado weliba si bini-aadanimo ku jirta ayay tiri hooyadii. Waxay tiri waayahay hooyo iga codso. Gabadhii ayada waxay ahayd gabar maskiino iska baari ah. Hooyo iga codso ayay tiri, arrinta aad rabto waan kuu sameynayaaye. Waxay tiri waxaan rabaa intii cimrigaaga ka dhiman in aad ku agdhamaysato ayay tiri wiilkayga, inta cimrigaaga ka dhimanna aadna ka xanaajin ayay tiri wiilkayga, inta cimrigaaga ka dhimanna aad farxad siin doonta ayay tiri wiilkayga. Gabadhii aad ayay u faraxday, welibana way ilmeysay. Waxay tiri hooyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maadaama aad ii soo celisay ayay tiri farxadeydii, aadna i dareensiisay in aad tahay hooyadeyda qaaliga ah. Gabadhii iyo hooyadii way isla soo noqdeen, weliba waxay isla soo galeen gurigii. Hooyadii wiilkii ayay waxay tiri wiilkaygiiow soo istaag ayay tiri, indhahaagana isku soo xir ayay tiri, indhahaaga isku soo qabo. Waayahay ayuu yiri hooyo, indhihii ayuu isku soo xiray wiilkii, wuxuuna u soo baxay banaanka guriga. Markuu uu soo baxay labadoodii ayay iska hor keentay ama saan ayay isu soo hor istaajisay. Waxay tiri wiilkaygiiow hadda indhaha waad furi kartaa ayay tiri. Wiilkii markuu indhihii kala furay wuxuuba arkay gabadhii uu soo guursaday oo marwadiisa ahayd. Wiilkii waa farxay, wuxuuna isku duubay gabadhii ayuu laabta geliyey. Wuxuu yiri hooyo maxay tahay waxaan aan arkayo, mariya mase waa run ayuu yiri. Waxay tiri wiilkaygii waa run, waa riyo ma ahan, waa run ayay tiri. Aniga ayaana raali kaa ah, maanta wixii ka dambeeyana ma doonaya ayay tiri noloshaada in aan burburiyo ama aan dhibaato kuu geysta ayay tiri. Wiilkaygiiow waxaan kuugu duceynayaa nolol aada u qurux badan, waxaanan kuugu duceynayaa owlaad baari ah ayay tiri. Waxaanan kuu rajeynayaa tiri cimri dheer iyo caafimaad qab. Waxay tiri waxaan kuu rajeynayaa nolol aada u farxad badan ayaan kuu rajeynayaa ayay tiri wiilkaygiiow. Marnaba ma doonayo in aan mar kale qalbigaaga jebiyo ayay tiri wiilkii. Wiilkii wuu soo cararay, hooyadiisa ayuuna xumbaaray. Wuxuu yiri hooyo qaali waan ku jecelahay, weliba si xad dhaaf ah ayaan kuu jecelahay. Hooyadeydii qaaliga ahayd kuma ilaawi doono ayuu yiri. Gabadhiina way soo carartay, sidoo kale ayay ku tiri ayadana. Waxay tiri hooyo waan ku jecelahay, kumana iloobi doona ayay tiri inta cimrigayga ka dhiman. Qisadii sidaas ayay ku dhamaatay. Asxaabteyda qaaliga meel walba dunida ka joogtiin, waxaan idin rajeynayaa farxad iyo nolol aada u qurux badan ayaan idin rajeynayaa. Maasha Allah, waxaan leeyahay qoys walibana waxaan rajeynayaa inay sidaas oo kale isu fahmi doonaan. Wiilkaas hadda hooyadiis waa ay fahansaneed, laakiin
wax yar ayay isku garaafsanaayeen amba iskugu dhacsanaayeen, sababta oo ah hooyadii waxay jecleeday mar walba inay hesho qof hanti leh. marka asxaabey, marka waxaan idin leeyahay sideeda banaanbo noloshu ma noqoto nalka ayaa iga damay, iga raalahaada, nalka ayaa iga tegay. marka walaalahayga qaaliga meel walba joogtiin, waxaan idin leeyahay caafimaad kheyr qabo ku waara. like-ga, subscribe-ka, share-ta, commentiga intaba hanaga iloobina, waxay noo tahay dhiirigelin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka waxaan u rajeynayaa qof waliba inay farxad midaas iyo mid lamid ah inay hesho, farxad aada u qurux badan ay hesho. qof walibana waxaan u rajeynayaa inuu helo nolol aada u macaan. famil walbana waxaan u rajeynayaa inay midaas iyo mid ka fiicanba ay u sameeyaan ubadkooda, ayna dareemi doonaan farxadda ubadkooda iyo weliba qiimeynta ay leeyihiin ubadka iyo weliba waalidka. wiilkaas wuxuu qadariyay hooyadiisa, waa uuna jeclaa hooyadiisa, ma nici jirin, laakiin wuxuu nici jiray hooyadiisa markay ku hadasho waxyaabaha lacagta iyo waxyaabahaas markay ka hadlayso. marka walaalahayga qaaliga, nolosha sideeda banaanba lacag laguma iibsado, waxaa lagu iibsadaa farxadda iyo weliba wanaagga, waxaana lagu iibsadaa waxyaabaha oo farxadda ah ayaa wax waliba lagu iibsadaa. ma ogiye farxadda lacag ma lagu iibsan karo. nolosha sideeda banaana lacag waxay ka tartami jirto. nolosha waxaa kala wada waa farxadda. qofka hadduu faraxsan yahay wax waliba wuu sameyn karaa, wax waliba hortiisa yimaadana wuu xalin karaa. hadda wiilkaas wax waliba wuxuu ku xaliyay wanaagiisa, maasha allah, iyo weliba reereynta uu hooyadiisa ula dhaqmay. aniga xatee waa un qeyrooda, maasha allah. waxaa idin leeyahay asxaabteyda qaaliga meel walba adduunka ka joogtiin, sii sheer gareeya iyo like saara, commentiga intaba dhiirigelin ayay ii tahay. waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.